maxkamadda sare oo ciidamada qalabka sida racfaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida maantay way ku dhawaaqaysaa xukunkii racfaanka haddii alla idmo maxkamadduna waa inoo furan tahay maxamed cabdi raage cabdulqaadir axmed buraale qofka ay yeelay gacanta kor u taagan si fiican u taagan محمد حاشي مؤمن عبد القادر أحمد أمل محمد أحمد علي قاسم عبد القادر جيلان محمد عبد الله أيانله فيصل أحمد بشير سهل عبد الله محمد جامع إدريس محمد أفياري سلمان محمد سليبان جامع مريدي محمد علي كلاي نجاية معو صبري محمد محمود أحمد علي إبراهيم نور محمد عبد الله أبكو محمد عمر مودي أوكي ساسي كده سديد توانكي حكومانه وحنا إنه آخر الدونة محكمة حكم كذا إن شاء الله عشان لا دحى كان الديد أبسط بسم الله الرحمن الرحيم magaca jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dawladda Puntland ee Soomaaliyeed maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dawladda Puntland gaalkacyo maalinimo Isniin ah taariikhduna tahay 14 bisha 2021 maanta ay taariikhdu tahay 14 bisha 2021 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus iyadoo fadhigeedu u dhayahay kana kooban garsoorka maxkamadda sare iyo kaaliyaha maxkamadda una ka soo qayb galay xafiiska xeer ilaalinta guud ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus qareena ay ka yihiin qareen Muxudiin Cabdulqaadir Maxamuud iyo qareen Ismaaciil Xalane iyo qareen Maxamed Cabdi Warsame maxkamaddu waxay go'aan ka soo saartay dhageysiga garmaqal dacwad ciqaabeed lid ku araf caanlayaasha kala ah kow محمد حاشي مؤمن صبرية أبو ضيبي هنا فاطمة نور كنتني لبشرة عبد القادر أحمد الورسمي أبو عبد الله هنا مريم محمد صدشرة محمد أحمد علي عوكة كما عدير شيري هنا فاطمة محمد صدني الحشرة قاسم عبد القادر جيلاني حسين كما عدير الترابي هنا أبو محمد صدشرة شن محمد عبد الله عياله كما عدر أبيله هنا عاشا علي جال صدني شنشرة كنا إيديسن حير لمبرتين قدب كيس اللباد فقرد دي سكوات دبناها waxaa ka ah marxuumiinta la dilay kala ah sida soo socdo sidaan hoos ku qoran magacyadooda marxuun Xasan Axmed Cali Xasayare مرحون محمود شيخ عثمان مرحون أحمد علمي عثمان مرحون أحمد موسى نور قدومي هرقول كمدك مرحون محمد موسى نور مرحوم أكس قاشان لسرة حوري مرحوم أكس قاشان لسرة عبد الغني أحمد قاري مرحوم شيخ إسماعيل حاشي مدحي دينته إيه أوقافته مرحوم سعيد علي يوسف قاضير مرحوم أكس حلبان علي فارح بوطان
علي جاس مرحوم عبد حسن قبة مرحوم فارح علي حاد مرحوم أكس حدقلة علي إبراهيم علي مقفة أفر طبعا مرحوم عبد السلام حسن حرسي كما على الججر قدومية هو الجولك نقال maxkamadda markay aragtay warqadda rafcaan qaadashada ka soo baxday xafiiska qareennada nuxurkeeduna ahaa rafcaan qaadasho xukun sumadiisu tahay maada ka isbaara aqa sa isbaara daca isbaara ga isbaara mudug iyo cayn isbaaro eber hal eber jeetin 22 isbaaro 22 kuna taariikh isnad 22 bishii afraad 2021 si waafaqsan qodobka 209 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda markay aragtay qiraalka eedeysanayaashu ay ka sameeyeen garsoore hortiisa sida ku cad qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda markay aragtay jawaabta iyo eedda xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda markay u cadaatay in xukuumanayaasha dhamaantood ka tirsan yihiin ururka argagixisada al-shabaab maxkamaddu markay ku qanacday cadeemaha maqal iyo muuqaal ee xafiiska xeer ilaalintu soo bandhigtay maxkamaddu markay daalacatay kutubaha shariicada islaamka suuradaha iyo aayadaha quraanka kariimka go'aan xukun maxkamadeed شور محكمة كذب محكمة سر رفعانك عندما قلب كسده دنبيada culus dawladda Puntland markay u cadaatay in dambi dhacay kuwa garan ay yihiin rafcaanlayaasha kala ah Maxamed Cali Karaay iyo Faadumo Maxamed Umar 40 jir ku dhashay gobolka Shabeellaha Hoose magaalada Shalambood degan Gaalkacyo xaafadda Garsoor شور محكمة كذب محكمة سر ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus waxa u cadaatay inuu dambi dhacay kuwa galan ay yihiin rafcaanlayaasha kala ah محمد حاشم مؤمن صبرية محمد حاشم مؤمن صبرية عبد القادر أحمد الورسمة محمد أحمد علي عوكة أفر قاسم عبد القادر جيلاني حسين شن محمد عبد الله أيانلي محكمة سر ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus dawladda Puntland waxay ayday xukunkii hore maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida gobolada mudug iyo cayn kaasoo nuxurkiisu ahaa dul toogasho xukuumanayaasha sare ku xusan maanta ay taariikhdu tahay 14 bisha 6 2021 maxkamadda waxay u fariisatay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dambiyada culus dawladda Puntland waxay u fariistay iyadoo fadhigeedu u dhayahay kana kooban garsoorka maxkamadda sare iyo isla markaana uu kaalinayo kaaliyaha maxkamadda sare uu ka soo qayb galay xafiiska xeer ilaalinta guud ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus dawladda Puntland qareena ay ka yihiin qareen Buqaari Maxamuud Maxamed qareen Muxudiin Cabdulqaadir Maxamuud maxkamadda waxay go'aan ka soo saartay dhageysiga garmaqal dacwad ciqaabeed lid ku ah xukuumanayaasha rafcaanlayaasha kala ah محمد عبد راقي إندبور إنا قيرو عبد الله شورية كنتني شنجرة كل شيء اسمايو دجن قال كعيو لبو عبد القادر أحمد برالي موسى إنا رقي حسن شراء صدني لبتشرة كل شيء شبابه هو دجن قال كعيو محمد عمر مودي إنا فاطمة أبو بكر محمد أفرتني كوتشرة كل شيء مركا دجن قال كعيو شغلي سنة هاي كوان له maxkamadda markay aragtay xaashada rafcaan qaadashada qareen Buqaari ee la qoray 24 bisha afraad 2021 maxkamadda markay aragtay warqadda rafcaan qaadashada qareen Muxudiin kuna taariikhaysan 9 bisha shanaad 2021 maxkamadda markay aragtay eedda xeer ilaalinta iyo jawaab celinta maxkamadda markay dhageystay dulucda dacwadda isla markaana qiimeysay dooda dhinacyada maxkamaddu markay akhristay dhammaan qoraalada gal dacwadeedka ku jira maxkamaddu markay akhrisatay qiraalka eedeysanayaasha ka hor sameeyeen garsoore hortiisa si waafaqsan qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed
maxkamadda markay u caddaatay in xukumayaasha dhammaantood ka tirsan yihiin ururka argagixisada al-shabaab maxkamaddu markay aragtay caddeymaha muuqaal daawasho ee xafiiska xeer ilaalintu soo bandhigtay go'aan xukun maxkamadeed showr maxkamadeed kadib maxkamad sare ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland waxay jabisay xukunkii hore maxkamadda darajada koowaad سمديسا أهد ما دع كإسبار عاقا سا إسبار دعا إسبار جا إسبار مدق يا عين إسبار إبر هل إبر جيتن كوي لباتن إسبار لباتن يكو لقر كوي لباتن كي بشي عفراد لباتن يكو نحور كذا هاد دلت يقشوا لبو محكمة waxay ku xukuntay rafcaanlayaasha kala ah Maxamed Cabdi Raage Cilmi Indabur ina qayra Cabdullaahi Shuuriye 55 jir ah ku dhashay Kismaayo degan gaalkacyo xaafada Garsoor shaqadiisuna tahay dhismaha guryaha labo Maxamed Cumar Muude ina Faadimo Abuukar Maxamed 41 jir ah ku dhashay Marka degan gaalkacyo shaqadiisuna tahay kawaanle midkiiba dil toogasho ah saddex maxkamadda markay u caddaatay qodobka labaad faqradiisa labaad xeerka lowlan barteen inuu ka mid yahay ururka argagixisada al-shabaab sida ku cad qiraalka garsoore hortiisa oo waafaqsan qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda waxay ku xukuntay Cabdirasaaq Axmed Buraale Muuse ila Ruqiyo Xasan Shire 32 jir ah ku dhashay Jubbada Hoose degan gaalkacyo xarig xabsi daayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland fadhigeedu u dhayahay kana kooban garsoorka maxkamadda sare iyo kaaliyaha maxkamadda uuna goob jooga ka yahay xafiiska xeer ilaalinta guud ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland ayna qareeno ka yihiin una qareen ka yahay waa hal qareen Muxudiin Cabdulqaadir Maxamuud maxkamadda waxay go'aan ka soo saartay dhageysiga garmaqal dacwad ciqaabeed lid ku ah rafcaanlayaasha kala ah Faysal Axmed Bashiir Gujis inamaka Sheekh Suufi 31 jir ah ku dhashay degan gaalkacyo shaqadiisuna tahay Faryaamo labo Sahal Cabdullaahi Jaamac ina boosteeye Maxamed Weheliye 32 jir ah ku dhashay Laanmadow degan gaalkacyo saddex Idris Maxamed Afyare ina dahabo Maxamed Ibraahim 25 jir ah ku dhashay Muqdisho degan gaalkacyo shaqadiisuna tahay dukaanle afar Salmaan Maxamuud Saleebaan Cabdulqaadir Alfarisi ina Sakoray Aadan Xasan 26 jir ah ku dhashay Baydhabo degan gaalkacyo shaqadiisuna tahay foorno rootila shan Jaamac Muriid Xuseen Maxamed ina Batuula Axmed Maxamed 20 jir ah ku dhashay Boola Mareer degan gaalkacyo shaqadiisuna tahay bajaajle kuna eedeysan xeer lambartan qodobkiisa labaad faqradiisa koowaad waxa dhibanaha koowaad ka ah marxuumiinta kala ah marxuun Xasan Yare marxuun Mukhtaar Jafajabsade marxuun Qalay Yuusuf Jile marxuumad Dhudi Yuusuf Jile marxuum Rooble oo Caarif Rooble Agoon مرحوم عبد القادر جامع النقال مرحوم ياسين علي بري مرحوم عبد القادر مرحوم سعيد لقود إيوه استافكيسا طبعا مرحوم محمود فري كوية طبعا مرحوم عبد الله فري إيوه ولالكيس قدودو لبية طبعا مرحوم بشير عبد القرس صدحية طبعا مرحوم حسن ويني أفرية طبعا مرحوم موسى عرطن شنية طبعا مرحوم ورية سيلفر لحية طبعا مرحوم عمر داري تضبية مرحوم اكس كورنيل احمد محمد دغوينه سيدادية طبعا بشير طبطبات اكس اقاسمه سيالية مرحوم بابو الكبير اكس انجينير غنبي لواتن مرحوم اكس ورية فرحان جيمس عبد الله maxkamadda markay dhageysatay eeda xeer ilaalinta iyo jawaab celinta qareenada eedeysanayaasha rafcaanlayaasha qareenada eeda xafiiska xeer ilaalinta iyo jawaab celinta
qareennada rafcaanlayaasha maxkamaddu markay aragtay dulucda dacwadda isla markaana qiimeysay dhinacyada doodooda maxkamadda markay akhristay dhammaan qoraalada galka ku jira maxkamadda markay aragtay qiraalka eedeysanayaasha ay ka hor sameeyeen garsoore hortiisa sidoo ka cad qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda markay u cadaatay in xukuumanayaasha dhammaantood ka tirsan yihiin ururka argagixisada al-shabaab maxkamaddu markay aragtay cadeemaha muuqaal daawasho ee soo bandhigay xafiiska xeer ilaalinta xukun maxkamadda sare rafcaanka ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland markay u cadaatay in dambi dhacay kuwa galan ay yihiin rafcaanlayaasha xukuumanayaasha kala ah Faisal Ahmed Bashir Sahal Abdullahi Maxamed Jaamac Idris Maxamed Afyare Salman Maxamuud Saleebaan Jaamac Muriid Xuseen Ahmed maxkamadda sare rafcaanka ciidamada qalabka sida waxay ayeeday kuna raacday xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad simadiisu ahaa maada ka isbaar aqka isbaar daca isbaar ga isbaar mudug iyo ceen isbaar eberhal jeetin 22 isbaar 22 nuxurkeeduna ahaa dil toogasho waxay maxkamaddu cuskatay low lambarteen qodobkiisa labaad faqradiisa koowaad iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maanta ay taariikhdu tahay 14 bishii 2021 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland iyadoo fadhigeedu u dhayahay kana kooban garsoorka maxkamadda sare iyo kaaliyaha uuna ka soo qayb galay xafiiska xeer ilaalinta guud goobjoogana ka yihiin qareennada kala qareen Muxudiin Cabdulqaadir Maxamuud qareen Cabdisalaam Ibraahim Axmed iyo qareen Aadan Maxamed Faarax maxkamadda waxay go'aan ka soo saartay dhageysiga garmaqal dacwad ciqaabeed lid ku ah rafcaanlayaasha kala Maxamed Cali Kalaay ina Faadimo Maxamed Cumar 40 jir ah ku dhashay gobolka Shabeellaha Hoose magaalada Shalambood degan gaalkacyo xaafadda Garsoor shaqadiisuna ahayd Kawaanle 2 Nageeye Muuse Macu Sabar Nageeye Qanji 38 jir ah ina Faadimo Muqtaar ku dhashay xamar degan gaalkacyo xaafadda Garsoor shaqadiisuna tahay Kawaanle 3 Maxamed Maxamuud Axmed Cumar Laaga 34 jir ah ina Raaliya Abu Cumar ku dhashay Jowhar degan Faanoole kana shaqaysta gaalkacyo shaqadiisuna tahay Kawaanle 4 Cali Ibraahim Nuur Shucayb Cali Jareer 35 jir ah ina Faadimo Aadan Xasan ku dhashay Afgooye degan gaalkacyo xaafadda Garsoor shaqadiisuna tahay Kawaanle 5 Maxamed Cabdullaahi Abkow Cali 37 jir ah ina Siteemayo ku dhashay Mareerey degan gaalkacyo xaafadda Garsoor shaqadiisuna tahay Faryaamo kuna eedeysan xeer lambarteen qodobkiisa labaad faqradiisa koowaad waxaa dhibanaha koowaad ka ah marxuumiinta hoos ku qoran marxuun Ceenaanshe Mire Maxamed 2 marxuun X Nabadoon Nuur Xirsi Nuurwaal 3 marxuun Cabdiraxmaan Nuur Gurey Geesdir 4 marxuun Cabdullaahi marxuum Nuur Yuusuf Gubeed 5 marxuum Cabdi Axmed Cabdi Dheere 6 marxuum Axmed Maxamed Jaamac Axmeyare 7 marxuum Faisal Cabdulqaadir 8 marxuum Cabdiraxmaan Nuur Gurey Geesdir 2 jeer buu soo laabtay marxuum 9 marxuum Muuse Aadan Xasan 10 marxuum Maxamuud Aadan Dalab 11 marxuum Cabdullaahi Cismaan Sheekh 12 marxuum X Xidigle Maxamed Faarax Muuse 13 marxuum Aadan Yooke maxkamaddu markay aragtay warqadda rafcaan qaadashada ka soo baxday xafiiska qareennada nuxurkeeduna ahaa rafcaan qaadasho xukun sumadiisa tahay maada ka isbaar aqqa sa isbaar daca isbaar ga isbaar mudug iyo ceen isbaaro ebrahal 33 isbaaro 22 isbaaro 21
kuna taariikhaysan 12 bishii shanaad 2021 kana soo baxday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Mudug iyo Cayn. maxkamadda markay aragtay eedda xafiiska xeer ilaalinta iyo jawaab celinta qareennada, maxkamadda markay aragtay qaraalada eedeysanayaasha ay ka horbixiyeen garsoore hortiisa si waafaqsan qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamadda markay u cadaatay in xukumayaasha dhammaantood ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, maxkamadda markay ku qanacday cadeymaha uu soo bandhigay xafiiska xeer ilaalinta. shor maxkamadeed kadib maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay u cadaatay in dambi dhacay kuwa galanayay rafcaanayaasha xukumayaasha kale ah Maxamed Cali Kalaay, Nageeye Muuse Macow, Maxamed Maxamuud Axmed Cumar, علي إبراهيم نور شعيب، علي جرير، محمد عبد الله أبكو علي. محكمة سرة waxay ayaday kuna raacday xukunkii hore maxkamadda darajada koowaad sumadiisu tahay maada ka isbaara aqaasa isbaara daca isbaara mudug iyo Cayn isbaaro eber hal 33 jeetin 22 isbaaro 22 ee la qoray 12 bishii shanaad 2021 nuxurkeeduna ahaa dil toogasho ah. maxkamaddu waxay u cuskatay xeer lambartan qodobkiisa labaad faqradiisa koowaad iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. wabillahi tawfiiq. maxkamaddu waa xirantay. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi